wanaaga waxa u dheer sidoo bara wacan yahay akhlaaqi weynikeeda adeeci waalidkeena wanaajinta aadmigoodan ihsaan warintoon dhammaan waxsheegeen talada suuban walaalku noo noqdaa waciga iyo weerihiisu garaadkay weheliyaan mar kale waa wabi janaan naxariista laga warshaa wanaaga waxa u dheer sidoo bara wacan yahay dugsiga hoose dhexe sare ee Gateway Primary and Secondary School oo kamid ah dugsiyada ugu fiican ee dhanka waxbarashada gobolka Sool ayaa waxa ka qalin bedeshay dufcadii shanaad ee dhameysatay dugsiga sare ee Gateway Primary and Secondary School. haddaba munaasabad si heersare ah loo soo agaasimay oo muqaamkeedu sareeyo ayaa waxa loo qabtay ardadii dhameysatay dugsiga sare ee Gateway Primary School ee magaalada Laascaanood. munaasabadaasi oo ay ka soo qayb galeen waalidiin waxgarad aqoon-yahan culimaadudiin madaxda jaamacadaha kala duwan ee gobolka Sool ardadii qalin jabinaysay iyo saaxiibadood ayaa lagu qabtay hoolka shirarka ee Jabutawi Hotel oo ku yaala galbeedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. munaasabada ayaana lagu daafuray nashaad cajiib ah oo ay soo jeedinayeen ardayda dugsiga hoose dhexe ee Gateway Primary and Secondary School kuwaasi oo soo jiitay dhammaan indhaha dadweynihii madasha joogay. intaasi kadib ayaa waxa hadallo dhiirigelin iyo soo jiidasho ardada ku saabsan munaasabada ka jeediyay madaxda jaamacadaha kala duwan ee gobolka Sool. halkan uga faa'iideeyo ama u sheego jaamacadda Hall International University ee tahay jaamacad yar caalamiya aad ma baari kartaan raadin kartaan helaysaan official website uu diyaar yahay aad ka baari kartaan internetka inta ka gadaal waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba aan baraarujinaya ardayda jaamacaduna diyaar u tahay in ay hagto tusto kulliyadaha qof kasta ku habboon in ay horta kulliyadaha u soo bandhigto. sidoo kale qaar ka mid ah ardayda qalin jabinayay ayaa iyana ka dareen celiyay munaasabada isla markaana mahadnaq iyo abaal u jeediyay macallimiintii iyo waalidkoodii waqtiga dheer iyo juhdiga soo geliyay. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن ان شئت سهلا فاجعل امورنا وامور المسلمين كلها سهلا. اما بعد maanta waa inoo tahay maalin aad ugu muhiim ah oo aan qalin bedelayno anagu ardada Gateway Secondary School. runtii anigu afkooda ku hadlay ardadii waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa maamulka iyo macallimiinta iskuulka Gateway Secondary School waalidiinta martisaabka soo qayb gashay jaamacadka oo ay ugu horeyso jaamacaduhu anagu way kala duwan yihiin jaamacadka oo ay ugu horeyso jaamacadda Hall International University. Thanking dear principals and honorable teachers for their endless struggle. Also thank you for my beloved mother and father who for the good guidance you gave to me, the courage and motivation you gave to me when we are critical. And here I'm celebrating now my completion of education level in high school. As to my education is to give success. aad baad mahadsantiin ku soo dhawaada mar kale Gateway waa rabshaha abaabulaha maqaashaha ubadkeena ayaheena waa astaan aqooneed oo eex lahayn waxa loo jooga macallimiin noo ah saaxiib waxgarad waayeel aan ku indhadoogsano waxaan u maleynayaa in halkan idinka muuqan macallin wajigiisa cabduusan yahay waxaan idin dhihi doonaa aqoontii ugu furnaanta wanaaga waxa u dheer sidoo bara wacan yahay akhlaaqi weynikeeda adeeci waalidkeena wanaajinta aadmigoodan ihsaan warintoon dhammaan waxsheegeen talada suuban walaalku noo noqdaa waciga iyo weerihiisu garaadkay weheliyaan mar kale waa wabi janaan naxariista laga warshaa wanaaga waxa u dheer sidoo bara wacan yahay. dhammaan waa salaamayaa waad sharafta ardayda qalin jabinaysa waalidiinta dhammaan waa salaamayaa anigu dardaaraya maadaama aanu macallimiintii iskuulka nahay ardayda waa la sii dardaaraya baan u jeedinayaa dardaarankaagaas waxaa weeye ardaygu markuu jaamacadda galayo waa inuu doortaa programka ama facultyga uu jecel yahay ee uu ka bixi karo niyadiisa ku jirta waa inuu doortaa hadduu doorto ama loo dooro program kale ama faculty kale
hadhow tadib bay ku keenaysaa mana dhammaysanayo qof walba wuxuu jecel yahay niyadiisa ku jira waa inuu doortaa dadaalkana halkaa laga sii wadaa waayo waa bilow maanta waa bilow intaa kadib waqtiga kooban awgii waxaan leeyahay gaanbedelayaasha hambalyo meel khayr qabta jaamacado wanaagsan ilaahay idinku aadiyo waxaan hadalkayga ku soo khatimayaa imisaan lahaa ardayda gateway aqoontoodu waa another level imisaan lahaa aynigoodoo kale imisaan lahaa aynigoodoo kale lama keenin ifkoo weli lama umin way ahaatay soo arki maysid umixii dilaaciyo soo ma ogidin asaagood abaal uma haye iska eega waddada u banneeya bal salaamullahi tacaala calaykum abwaan cumar ismaaciil digeed oo ka mid ah abwaanada da'da yar ee gobolka Sool ayaa isna maanso dareentaabad leh munaasabada ka jeediyay dardaaran waayeelna faray ardada sanadkan ka qalin jabinaya dugsiyada hoose dhexe iyo kuwa sare ee magaalada Laascaanood ugu horeysa ilaah baa mahad iska leh marka xigtaan waxaan halkan hambalyo bogaadin iyo salaan aad u diiran uga dirayaa barayaasha iyo maamulka dugsiga sare ee Gateway waxaan halkan xafladayntooda iyo hambalyoontooda u soo istaagay ardayda maanta qalin sikisay anoo odhan maayo way qalin jabiyeen way qalin sikiyeen qalinkoodii inay hore u sii wadaan ayay sameeyeen wax qalin oo la jabiyaa ma jiro ina iffuray ku ilfuray allaahi eebbaha naxariista guud leh eebbaha naxariista gaar leh eebbaha naxariista guud u simay gaal iyo islaamba eebbaha naxariista gaarna intii amarkiisa raacda abaalmarin ugu hibeeya awood adigaa leh eebow itaal adigaa leh eebow ammaan adigaa leh eebow adaa il iyo nusqaanba eebow ka nasahan xumaanba asbaab iyo magacyadaadu adaysan ahayn mid kooban adduun ka hor iyo ifkaanba adaa awal jirayna joogay adaa iminkiiyo hadhowna ahaanaya baaqi waara adaa armadiyo makhluuqa wax uuman waxaan imaanin waxaasan wax oogtan saaran adaa atab iyo mid weynba ahayay abuur dhammaysa anoonan inkirin wanaagga anoon kaaf xidhan samaanta eegiyo iminkada la joogo wuxuu yahay aynigaygu ayaamaha iyo gugayga waxaan soo maray umuurba wixii amar dhacay falkiisa adaa ii qoray si oogan astaynna adaa hormeeyey ugu dambeyn waxaa munaasabada soo afmeeray maamulaha guud ee dugsiyada hoose dhexe sare ee Gateway Primary and Secondary School waxana uu maamuluhu ku dheeraaday qiimaha waxbarashada iyo ardaygu ay ku dhexleeyihiin bulshada gudaheeda bismillaah alxamdulillaah alladii callama al-insaana maa lam yaclam thumma as-salaatu was-salaamu calaa nabiyina wa murshidina wa mucallimina محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه صلى الله عليه وسلم إن فصل لنا محمد صلى الله عليه وسلم مسو كوبي كرفحات إلى ما أنت تسعد الشناب تسعى سرعي Gateway وحسوسي مضان دفعوينكي Gateway مثل وما يعرف قصة تنايد دفعنا ودفعنا الشناب haddaan iyo dib idin xusuusiyo macalna kadib waalidiin arday macallimiin maamul batisharaf jaamacado dhammaantood hay'adkoodan ku salaamayaa meeshuu joogo dufcadii koowaad waxaa la oran jiray ugu magacaabi jiray SYL waxayna ahaayeen 13 arday dufcadii labaadna waxaa la oran jiray 26 Juun 26 arday ahaayeen dufcadii saddexaadna waxaa la oran jiray allah mustacaan waxaa la oran jiray daraawiish 89 ahaayeen dufcadii afaraadna waxaa la oran jiray saddexaad afraad waxaa la oran jiray 1 May dufcada maanta aynu joogno afraad baan ka wadaa waxaa la yidhaahdaa 15 May
maalintii dhalinyarada iyagaa la baxay magacaas oo qaatay maasha allah hadal badan ahaan in buuxsho mar labaad iyo mar saddexaad baa hambaliyo ruuxdu way kulushahay waa la yar daalay maanta oo dhan baa la fadhiyey laakiin waxayna qorraxda iyo kuleylka iyo wax kasta u dareemaynin markii farxad iyo ranrayn ay jirto laakiin marka kale ma fadhiyi karta daqiiqad laakiin maanta waxaan aad ugu faraxsanahay oo aan jeclahay inaan la qaybsado farxaddayda ardadayda sharafta mudan ee aan qaarkood istaandhawan fasalka koowaad ee birimada ama koowaadka ilaa maanta oo foonfoora aan gacanta ku soo rabeynay maantana halkaas wanaagsan maanta jooga hambalyo idinkiyo waalidiintiina iyo ehelkiina iyo familka dhammaantiin dhammaan waxaan kale u hambalyaynayaa macallimiinteeda sharafta mudnayd ee hiil iyo hool la garab taagneed ardadaasi wanaaga badan aad iyo aad baan idin salaamayaa waa maxamuud salebaan telefishinka caalamiga ee VOS magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.